iyadoo dhowaan dib loo furay howlihii garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho in muddo u xayirnaa cudurka covid-19 ayaa haddana waxaa isa soo taraya cabashooyin kala duwan oo loo jeedinaya shirkadda Faforo oo gacanta ku haysa maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana lagu soo waramayaa inay shaqo joojin ku sameysay qaar ka mid ah shaqaalihii ka howlgelaya garoonkaasi. qaar ka mid ah shaqaalahaasi oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay in aysan ogeyn waxa shaqada looga joojiyay, hase ahaatee in ay ka maqan tahay in muddo ah xuquuqdooda. dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayay ka codsadeen in arrinkaasi ay soo farigeliso si wax looga qabto dhibaatooyinka ay ku hayso shirkadaasi Fafori. qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waa kuwan shaqaalahaasi oo ka hadlaya waxyaabaha ay ka cabanayaan. waxaan ka cabanaynaa xaquuq la'aanta shirkadda Fafori ayadoo ah maadaama ay dawladdu ku dhawaaqday coronavirus 4 bilood saas laaliga shaqaaluhu ay banaanka joogeen, haddana ay dawladdu ku dhawaaqday bisha 3deeda saas laaliga oo shaqaalihii dhammaan maaragtaan soo wada galnay ka bacdina shirkaddu ay tiri yaa in soo xareeyay yaa in soo amray inaa soo gashaan elaboorka ayadoo amarka dawladda annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo qaadanayna saas laaligeed oo xaasalayaal dhibanayaal intaba isugu jira ayaan soo wada shaqo tagnay. ka bacdi shirkaddu waxay noogu hanjabtay yaa in fasaxay oo elaboorka imaada in yiri saas laaligeed waxay kale nagu sameeyday xaquuqdii aan xaq u lahayn inaan maaragtay aan ka weynay anagoo xaqeenni iyo xuquuqdeenni ay 4 bilood iyo masaada ninka ugu yarno 5 sano shaqeynayo ayaa haddana la yiri yaad u timaadeen yaasa ka timaadeen. marka dawladdeena waxaan ka codsanaynaa in kambanigaas Fafori ee airportka haya ee haddana saakay shaqaaliheenni qaarna reebta qaarna kale iska baxan yiri xaq iyo xuquuq waxaan ku leenahay aan ka helno annagoo ah muwaadin Soomaali niman ajaaniba oo nala joogay oo nala shaqeynayay ayna shaqeynayaan ayna bixin 4 bilood aan baagamoodada ahayn haddeertaan nala yiri baxa ka baxa xeradan ee kaaradan ka qaadanayna. marka wax walba oo dhaca annaga waxaan ka warsugaynaa dawladdeeni. waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed macallin dawladda inay cabash ka nahna shirkadda Fafori taas oo xaqirtay 4 bilood wax mushaar ay wax xuquuqna siinin ka bacdina shaqooyinkayni maaragtay marka dib ugu soo noqonayna ka bacdina raaday elaboorka ma furno. waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo wax qaban karto oo Soomaaliya amba wax ka dabqato inaan anaka nala xaqiray oo nala bahdilay oo nala jiiday oo ina jiideen niman Afrikaan oo u dhashay dalka Kenya iyo dalka Uganda kuwaas oo shaqaalaha hoose oo xafiisyada hoose joogo oo mar walba Soomaalida waxay rabaan tacaddi ku sameeyaan haddaan dad ka dhiidiyo oo diinta Islaamka haysto amba haysto maaragtay qadiyadda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadkaas cadawga inay xuquuqdooda noo qaadaan. maxamed cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.